function kan limitkiisa ayaan ka rabaa inaan soo saarno anagoo isticmaalayna the limit lawskii. marka waad aragteen function kan wuxuu ka kooban yahay laba function oo la isku dhuftay waa 4x kan oo lagu dhuftay function kan kale. marka si faan u helno waxaan isticmaalaynaa the limit laws iyo mid loo yaqaano power law maadaama function kan labaad power ay qabtaa. marka limitka kana raadinaynaa x markay u socoto negative half, limitka kana waan raadinaynaa x markay negative half u socoto, kadib labada limit ayaan isku dhufanaynaa. marka waxaan leenahay is equals to limitka ayaan soo qaadanaynaa x waxay u socotaa negative half. marka function kana koobaad waxa weeyaan 4x, marka 4x ayaan soo qaadanaynaa. marka midan dhan waxa weeyaan hal limit kadib waxaan ku dhufanaynaa limitka function kan. marka power rule wuxuu sheegayaa marka function raadinaysid limitka gudaha waad gelin kartaa macnaha, oo marka waxay noqonaysaa limitka x markii loo u socoto negative half sidaas 3x waan soo qaadanaynaa, kadibna 4 ayaan ku daraynaa, kadib raised to power 2. soo ma garan? marka sidaas waad samayn kartaa in power rule saas u sheegaya. marka intaad heshay marka waxaan samaynaynaa hadda limitka waxaan raadinaynaa function kan 4x x markay u socoto negative half. marka waxay iska noqonaysaa keliyata 4 oo lagu dhuftay negative half, booskii x unba waxaan gelinaynaa negative half. soo maydaan garan? marka lagu dhuftay limitka function kan x markay u socoto negative half, marka 3 booskii x negative half aan gelinaynaa, kadibna 4 aan ku daraynaa 4, kadibna waan isku egaraynaynaa. okay, marka 4 times negative half waa iska nasinaysaa negative 2. soo maydaan garan? waxaan ku dhufanaynaa midkanna wuxuu nasinaya meeqa, waxay nasinaysaa 3 all over 2 waa iska negative 3 over 2 oo lagu daray 4 oo haddana la isku egaray. soo ma aragteen? marka negative 2 gaan soo qaadanaynaa, waxaan ku dhufanaynaa midkan hadda muxuu nasiinayaa negative 3 plus 4 all over 2. haddii aad samaysid waxaa kuu soo baxaya negative 3 all over 2 plus 4. alafu haddaad ku samaysid kadibna aad ku samaysid squared waxaa kuu soo baxaya 25 all over 4 after operationka markaad ku samaysid 25 all over 4 ay kusoo baxayaan. intaas markaad heshay hadda waxaa kuu dhiban keliyata negative 2 iyo marka 25 all over 4 waxaa weeyaan the limitka function kan x markay u socoto negative half, negative 2 datanna waxaa limitka function kan oo kana 4x ga x markay u socoto negative half. marka hadda labada limit ayaan isku dhufanaynaa, waxaa noo soo baxaya negative 25 all over 2, negative 25 all over 2. marka function kan aan soo aragnay x markay u socoto negative 2 negative half aan ka wadaa waxa weeyaan limitkiis waxa weeyaan negative 2 negative 25 all over 2 negative 25 all over 2 weeyaan. waxaana isticmaalnay product rule-ka iyo the power rule.